الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعن وناكسن دمانا قيارتي دغيسانيسا meel kasta joogtaan soo dhawaada barnaamij aan ugu talagalay in aan idinku soo bandhigo jahliga iyo dhibaatada heysata qayb kamid ah saxaafadda Soomaaliyeed. haddii aan idin soo bandhigo qayb kamid ah qodobadii aan soo arooriyay ayaa waxay u dhacayaan sidan: maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada iyadoo sidoo kalena ay ku baaqeen in Soomaaliya markaasi laga hirgeliyo madhabka shiicada. tixraac qodobka koowaad wariyaha warka akhrinayo wuxuu yiri maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada. midda koowaad qalaqigii iyo culimadii aad ogeedeen iskaga yimid daafaha East Africa ayuu wuxuu ku tilmaamay maamul. waa maxay maamul? maxayse u dooratay idaacaddu ciwaankaas iyaga oo og sida sharweynaha uu dhacay? midda koowaad maamul macnihiisu waa maxay? maamulka ahlu sunna kani ma ahayn maamul ahlu sunna ee wuxuu ahaa shirweyne ahlu sunna oo ka dhacay wadan daris la ah dalka Soomaaliya oo wuxuu ka dhacay Kenya. isla qodobkaas wuxuu yiri wariyaha maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada. maamulka ahlu sunna oo iska fogeeyay. su'aasha waxay tahay waa maxay iska fogeen? maxayse u dooratay idaacaddu ciwaankaas iyagoo og sida shirka u daawateen inuu u dhacay isla markaasna isku keenay علماء الدين آد فربضان شركة سعودي مدة كبان 3 مالين. علماء الدين أهل السنة والجماعة إياها أيا أبابولي شروينة ومدى الصومالية لو قدقى شيعة وهال برغراف وأخري وريها نوحو استعمالي لابا إري أو قلد صحافة دانا مال أقنعيا. isla daqiiqadii wariyaha muxuu yiri maamulka ahlu sunna oo iska fogeeya in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada iyadoo sidoo kalena ay ku baaqeen in Soomaaliya markaasi laga hirgeliyo madhabka shiicada. ahlu sunna oo ku baaqday in Soomaaliya laga hirgeliyo fikirka shiicada. bal u fiirso eraygaas wariyahaas uu leeyahay oo miyuusan xasuusnayn eraygii ka horeeyay oo yiri oo ahaa ahlu sunna oo iska fogeysay inay gacan saar la leeyihiin shiicada. ma aqaan inuu ku hadlayo luqadka qalaad waa mise luqad China ma baaha Soomaaliya. isla daqiiqadii labaad wariyaha wuxuu isticmaalay maamulka ahlu sunna ayaa iska fogeeyay in xiriir gacan saar ay la leeyihiin shiicada iyagoo culimada Soomaaliyeed uga digay in shiicadu ay ku soo fidaan Soomaaliya. ahlu sunna oo culimada uga digtay in fikirka shiicadu uu faafo. ahlu sunna ma urur siyaasi oo meel degan oo la hadlaya culimada mise ahlu sunna waa culimo u diinka Soomaaliyeed isla iyaga ayaana abaabulay qorshaha amaba shirweynaha looga digayo ummadda Soomaaliyeed arinkani fikirka shiicada ee ku faafaya Afrika. shirku waxa qabtay culimadii naftirkooda culimo u diinka Soomaaliyeed ee ma qabanin urur siyaasi ah ama urur NGO ah. wariyuhu halkaasi muusan fahmin macnaheedu. fadeexada u weyn oo aad la yaabi doontaan oo marar badan dhacda sida idaacadda Shabeelle ay sheegtay waxa maqalnaa idaacadda Shabeelle madaxweynaha oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle oo hogaamiye hebel wareysi siiyay balse ma ahane fadeexada meeshaan taalay halkan ila dhageyso. دكتور خليف محمود عبد علمي oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay in dadka Soomaaliyeed ay u nugul yihiin in ay u soo dusto madhabta shiicada waxaana uu ka digay in dadka Soomaaliyeed ay shiicada ku dhex milmaan isagoo ku booriyo culimada Soomaaliyeed in dadka ay ka wacyigeliyaan dhaqanka shiicada. press release culimada ahlu sunna wal jamaa ee geeska Afrika ayaa shir looga hadlayo qatarta iyo dhibaatada bidcada shiicada ah ku qabtay magaalada Makiina Road ee dalka Kenya. culimada oo ka kooban ahlubaytka rasuulka calayhi salaatu wassalaam mudarrisiinta iyo sheekul dariiqaha dalalka geeska Afrika waxay ka kala yimaadeen deegaano kala duwan ee dalka Kenya ah sida Nairobi, Garissa, Wajir, Mandera, Tana River Coast, Ariha, Dadaab, Kakuma iyo sidoo kale dalalka jaarka ah sida Ethiopia, Soomaaliya iyo Tanzania. culimada ahlu sunna wal jamaa waxay isku waafaqeen kow in shiicada badankood madhabkoodu gaalnimo yahay inta soo hartana tahay bidco aad u xun xaqana ka fog. ahlu sunna wal jamaa bari ka yihiin isla markaasna waxay uga digayaan ummadaha islaamka ah fidnada bidcada shiicada ah. fadeexada ugu weyn waxay ahayd warmurtiyada caalami ah kaasoo qaadatay bahda saxaafadda kuwa localka ee Kenya ka jira kuwa Soomaalida TV-yada saxaafadana goobjoog ay ahayd balse wariyahan muxuu sheegtay دكتور خليف محمود عبد علمي oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle magaalada Muqdisho ayaa tibaaxay muxuu yiri oo wareysi siiyay idaacadda Shabeelle waxa uu waramay idaacadda Shabeelle uu hadana ka dhigayo shakhsi asaga u waramay
hase yeeshee ma ahayn warmurtiyeedkan wuxuu ahaa warmurtiyeed laga aqriyey dad hortooda. Shabeellana goobjoog maysan ahayn ee warku waa loo diray. haddii loo diray maxaa ku kale fooriyaha inuu ka dhigo warkan war Shabeelle qaas u ah uu dhaho idaacadda Shabeelle la siiyay. midda kale maxaa u diiday marka uu leeyahay ninkan Shabeelle siiyay in uu dhaho warmurtiyeedkii ka soo baxay waa kan oo ah intaan oo qodob. wallaahi ceeb taalo waa la ceeboobay. intaan aad u jeedaan waa qaybo ka mid ah warkii ay akhriyeen oo ka baxay idaacadda oo ay bulshada Soomaaliyeed dhammaan wada dhageysatay meel kastay joogaan. haddaa gashid website-yadooda waa laga helayaa. waxaa kaloo ay kugu soo bandhigi doonaa haddii ay ka baxsheen website-kooda linkiga website-yada wararkan ay galeen iyo wararka codadka oo dhammaystiran. waa mahadsantihiin dhammaan khayarta i dhageysanaysay.